horta waa dalkeenu gudihiisii meeshaa ka hadlaysaan laakiin waa xadkeenu gudihiisii dee xadkeenu gudihiisana inuu difaacnade waa waajib qaran waa waajib dastuuriya xadkeenu gudihiisii bay nagu haystaa waa dowlad ogolaanaysa ma jirto sida xadkeeda gudihiisa mala waxaynu soo aqoonsanin inuu dowlad nahay waxaad moodaa halkaa aqoonsiga inuu dibadda ka raadinayno inaynu u baahnayn innaga lafteenu inaynu isaqoonsano xuduudaheena aynu aqoonsano waxaan ka maqlay tiifiyada nabad qaar aynu nabada lagu soo dabaal hala nabadeeyo dee maba aqoonsanaba kuwaas calankan taagan iyo dowladnimadan taagan dowlad maxaa laydhaa dowladda markii ictiraaftoodasa maxaa laga rabaa dowlad waa in dhul cayiman leedahay waa in bableeshan jiraa waa in maamul jiraa heshiis lala geli karo waa ina xeer lagula dhaqmo leedahay waa qodobadii asaasiga ahaa mid ka mida waxa ay garan layihiin anu waxaan salaada waxaa ka yeedhsiinaya waa jahli laakiin ma jirto qof garanaya inaynu dowlad nahay oo odhan kara tukarag nabad ha lagu soo dabaalo tukarag sidan ha laydhaho tukaraga waa inside somalilan bartika somalilan bay ku taallaa gudaha somalilan bay ku taallaa soomaaliyana de waynu kala go'on soomaaliyana waynu kala go'on muraad bay ka leeyihiin tukarag laakiin kuwa reer somalilan iyo tukaraga nabadda ka sheekaynaya waa dadaan aqoonsanayn badda inaynu qaran nahay oynu waddan nahay oynu dowlad nahay waa tuma dowladda ogolaanaysa hal taako dhulkeeda in la soo gala waa tey waa tuma ma jirto markaa waa jaahilnimo weeyaan waxaana ku hadlaya waa dad reermihii baa dee soo qaatay oo wax sheeganaya oo dowladnimadii aan garanayn